ولله إحسان وفضل عطائي. وما الدهر يوما واحدا في اختلافه، وما كل أيام الفتى بسواء. وما هو إلا يوم بؤس وشدة، ويوم سرور مرة ورخاء. أيا عجبا للدهر بل لريبه، يخرم ريب الدهر كل إخاء. وشتت ريب هذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على الأخوة، الحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله waxaa qurux badneyd inaynu darsigii sheekhu wada dhageysano. Annaka haasaanu imid markaa waynu sii buuhabuhaynaa, sheekhaynu sii buuhabuhaynaa haddii ilaahay idmo fadhiga insha allah. Ikhwaani fi Allah, waxaan laba qodob oo kooban ama laba su'aalood baan isku dayi doonaa inaan dul istaagno haddii ilaahay idmo. oo التحديات maxaa challenge ah, maxaa mashaakil ah, maxaa caqabaad ah haddaynu muslimiin haddaynu nahay maxayna hor yaalla. marka laba qodob oo aad u kooban baan isku dayi doonaa haddii ilaahay idmo inaynu isku dayno inaan kor istaagno. waxaad ogtihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala dhulkan markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala abuurtay aadamahana markuu abuuray ilaahay sunan buu ugu talagalay, qawaaniin ilaahi ah oon isbedelaynin. walan tajida lisunnati illaahi tabdiilan walan tajida lisunnati illaahi taxwiila thaabita. sunankaa waxaa ka mid a sunna la yidhaahdo ataxadiyaat. afkan gaaladu waxaana yidhaahdaan challenges. taxaddi waa caqaba. haddii adduunkaanu caqaba haddaana jirin, caqaba financiala, caqaba caafimaad, caqaba midnimo, caqaba dowladeed, caqaba ubad iyo barbaarin ah iyo education ah, haddaana jirin cadow maxay tole kugu lid ah, haddaanu maxay tole jirin dee jiritaanka adduunka in la joogaan macnaba muu lahaan lahayn. laakiin inay caqabaati inay jiraan wax kugu lid ah oo aad u dadaashid oo aad ka tashatid oo aad ka tabaabuushatid oo aad dadkaagii iyo tamartaadii iyo xooggaagii iyo muruqaagii iyo maankaagii iyo maskaxdaadiiba aad aruurisid ood ilaahayna subxaanahu wa tacaala intaa ka hor tala aad weydiisatid oo tawfiiqda ilaahay deedna aad faysgaraysid ood muwaajahaysid caqabadaasi haddii aanay jiri lahayn falaa macna lilxayaa, nolosha lafteedaan macno maxay tole lahaan lahayn. bimacnaa ka soo qaada dhulku maanta haddii uu gebigiisuba wada muslimiin hadduu dhulku yahay, wada muwaxidiin dadku hadday wada yihiin maanta, maa fi kaafir, maa fi munaafiq, maa fi imtixaan, waxba aanay maxay tole aanay jirinba. joogitaanka adduunku muxuu macno lahaan lahaa? idan waxay ahaan leedahay inuu jannadii dee ilaa wax challenge oo ka hor yaalla ma jireen. caks haddii dhulka aanay mu'miniin jiri lahaynoo dhulka dadka saaran oo dhan ay wada gaala yihiinna ka waran. maa fi mu'min muwaxid laa ilaaha ila allah haddaanu jiri lahayn, si jiritaankiisa adduunka macno lahaan lahayne cawdaa loo goyn lahaa isagana. bixadiidkii saxiix bukhaari ku jiray laa taquumu saacatu ilaa calaa shiraari alkhalq. mar haddii laga waayo mu'min laa ilaaha ila allah dhulka yidhaahda, ilaahay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu soo diraa, ayuu nabigu nagu yiri sal slam, riix dabeel ayuu ilaahay soo diraa qabla aakhiri zamaan. ruuxa dabeeshaasi waxay qabataa kulla man yaquul laa ilaaha ila allah. qof kastoo laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah ayay ruuxsi. mu'miniintoo dhan baa idlaada, yaa dhulka ku hadhaya gaalo yowma qiyaamaha ku kacaya. marka in la wada joogo kaafir, munaafiq, muslim, gaafil, caasi, in la wada joogo dhulkani ayaa waxaa ka mid a sunanku ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay. marka qofku haddii uu ku noolaado taxadiyaadka noloshiisa hor jooga, hadduu iskaga noolaado nool caadi ah, nool caadiyu iskaga noolaani, wayamuutu caadiyan wayubcafu yowma alqiyaamati caadiyan. laana wax allaale wax taxaddi ah haba yaraatee maxay tole ma jirto. carabkii gabyihii hore ee jaahiliyadii hore jaahiliyada ahaabaa nin baa wuxuu yidhi lii kabidun maqruuxatun man yubaadilunii biha bikabidin saliimatin. waxaan haystaa buu yidhi beer ibuka, beerka ibuka buu yidhi, maqruux dildilaacay, yaa igaga bedelanaya buu yidhi mid saliima.
marka wadaad hindi ahaayo hindi abulxasan annadawi oo hindi ah ayaa gabaygaa la tafaaculo wuxuu yidhi anigu ninkaa jaahiliga ahaa gabaygiisaas sax uma arago wuxuu yidhi isagoo oo 1951 xajka xaramka maka isagoo khudbad carab u jeedinaya ninkaa hindigii ayuu intuu gabaygaa soo qaatay buu yidhi kaasi wuxuu yidhi lii kabitun maqruuxatun man yubaadiluni bisaliima anu waxaan leeyahay buu yidhi candii kabidun maqruuxatun wa tabqaa macii maqruuxa sidaa hay ahaato buu yidhi nin aan hammi xambaarsanayn ma nin baa buu yidhi qofku haddaanu hammi ku gubayn aanad risaale xambaarsanayn oonad wax kar haddaanu ku haynin oo marka aad maxaytul aad u dhawaatana aanad farxa haynin markuu kaa fog yahayna aanad inaad qabato aanad maxaytul doonahaynin maxaa abulmuslim alkhuraasaani ninkii u goglay gogosha dowladdii reer bani cabaas khuraasaani waa carab ma ahayn ayaa maxaytul markii dowladdii reer bani cabaas loo ololeynayay reer bani umayana ay madaxda ahaayeen dabka hoosta laga shidayay sayba fahmasaan markii dabka hoosta laga shidayay ayuu abulmuslim alkhuraasaani nin ay adeerkiyiin buu ku yidhi waryahay war waa lagu hayaayo waan ku arkahayaa meel dheerna waad u socotaaye maxaad doonaysaa buu yidhi qaala himmatii himmatul wuxuu yidhi waxaan arkayaa buu yidhi dariimka ee riyadaydu intay cadceedu iga fog tahay buu yidhi laakiin waan arkayaa maalin un baan qaban doonaa buu yidhi laakiin u qabtay taariikhda reer bani cabaas akhridaa ninkaas wuxuu ku dambeeyey inkastoo aakhirkii laga takhalusay ninkuu kursiga ku fadhiisay baa kurka ka jaray kii laftiisii isagu beesha uu keenay ayaa fi nihaaya ka takhalusay laakiin himo dheer buu nafsi hada almacna kabidun maqruuxa imaam shaafici laftiisa isagana laga hayaa qofku inuu taxaddi noloshiisa qofku inuu risaalo leeyahay oo waa maxay imaam shaafici waxa laga hayaa isna radiyallahu anhu isna wuxuu oran jiray himmatii himmatul muluki tara almadallata kufra himmatii himmatul muluk dareenka igu jira buu yidhi iyo hididiinada igu jirtaa boqornimo kama hooseysa buu yidhi tara almadallata kufra inaan dullinimo qaato ama aan hooseeyo gaalnimaan ka xigaa buu maxay ayuu oran jiray ana in cishtu lastu acdimu quutan wa in mittu lastu acdimu qabra haddaan dhinto buu yidhi xabaa laygu aasan la waayi maayo intaan nool ahayna luqmad ceeshoon cuno waayi maayo buu yidhi laakiin dulli qaadan maayo inta aan maxay tolay inta aan noolahay marka hadaf waa maxay macnuhu war qofku risaalad iyo hadaf iyo wax guba oo uu habeenkii ka seexan waayo isku rogrogo sariirta lo hawshi ma qabatay qofku waa inuu maxay tolay uu xambaarsan yahay taxadiga koowaad ee marka had iyo jeer dhalinyaro qof weyn waayeel had iyo jeer soo noqnoqda waa su-aashan koowaad gaalada falaasifada gaaladuna aad bay arrinkaa u qoraan xataa qabla almasiixiyada ka hor xataa berigii aflaatoon iyo aristotelis iyo berigii griiga su-aashani su-aal taagan bay ahayd markii ay maxay tole kiristanka ay ka baxeen qarnigii 16aad ay ku gaaloobeen kiriisada ay ka baxeen ee ay yidhaahdeen annaga ismaamulana falaasifadoodii waaweynada reer galbeedku su-aashan iyaguna way soo nooleeyeen su-aashaasi iyada oo kooban maxay tole waxa weeyaan albaxthu can addaati qofku guri buu baaraa hanti buu baaraa guriyuu dhistaa ubad buu maxay tole dhisaa shahaaduu raadiyaa mansab buu raadiyaa aqoon buu raadiyaa waxaasoo dhan waa something waa wax adiga externalka ah waa wax adiga kaa baxsan laakiin internalkaaga adiga gudahaaga waxaa ku jira daadkaaga inaad heshid addaatuka naftaada ma heshay markaa waan iswaayey waa kelmad weyn soo maha qofku isagoo oo jiro oo cunayo oo cabayo oo ballaadhan oo casoo dhabarku intaa leegyahay oo gaadhiyo waaweyn wata wax walba wata ayuu haddana iswaayayaa qofku alien gaaladu kelmadaas waa cudurrada qofka ku dhaca weeyaan psychologicana waa lagu daraaseeyaa waa qofka alienation baa ku dhacaya alienation bay gaaladu yidhaahdaan saad u joogtid wax allaala waxaa tahay ayaad maxay tole iswaayaysaa ninkan gabyo ee hadraawi ayaa London anoo joogo buu yiri 4 sano wax wadwada ayaan soo istaagay wado wax allaala gaarina cad ya hadraawi London ka garanaya gaarido dhan baa idhaafo buu yiri ana waan taaganahay buu waxaan isweydiiyay buu war maanta hadaad magaalo Soomaaliyeed joogi lahayd magaala ku dhaafi lahaa kelmadu isticmaal wuxuu yiri London waan isku waayay buu waan iswaayay buu gibigayga waan iswaayay inaan jiro waxaan ahay cid wax kam maxaad haysaaba cid way oo dhaweeyay hatta ma fiisha keen baa yiraahdaan cid wax keen tirahdaba waayay maxay tolay waa cudur maxay tolay qof ku dhac markaas aasha kuwad inaynu aad had iyo jeer
مرنا لقى جوابه وسؤال صور نقطة وسؤال صور نقطة تجديد باحن ألا إن الإيمان ألا إن الإيمان ألا إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب ألا فجددوا إيمانكم قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله قال أكثروا من قول لا إله إلا الله حديث هو حسن رسول الله يقول لسه وارهوي إيمانك عصبو نيسيسته فإن الإيمان يخلق ومدع سيدا مرض أمرته ومدع إيمانك عصب ما حان سمينا بلا ولا إله إلا الله هذا بضيب النبي ومحي والبحث عن الذات مربان وذات نقضي مربان محيته للصحوة صوغلي مربان قرآن كبير وهو تفسير كله جيستي وطم ها هكا أول بحث ديدنا محيته لواس وشيء سوليد وشيء سوغانو ديدنا خزندان كوريتو إجابة مرنا يومي إيمانك لا إله إلا الله با سيدا صابون أولثميا أو مرنا فما بالك محيته ليان عمل كيو هاوشي محيته ليان أدودي أو إذلي من أنا يا طحي جوابته تاعد محيته لك جوابته هدي قيم ديني عاد باك جراوندك ويا خلفياتك وداد كجا جوابتي يا طحي هداد قيم ديني كجا جوابتي وينهلي وينك هل أما من أنا يا أحي إن العنصر هان وجا جوابه قف مذوب أنا أم بلاك مان تطبع ما كي وايان بلاك نمد وحط هاي سو معه سو إحنا سكوا عروسة معه مذبكو وعدية هي وعسية هي وصل سكوا عروسة وجوابتها أو من أنا أبو من الله لمن ولك عينت وايب يوري بالمذوب جيسوا عروري بالمذوب هانو أبتر سيمة شيكتي وحبوك الرادين هي أما اللغة أنت اسكو أفقع أنت هي اسكو أفقع وحي رادينيان محي رادينيان من أنا ذي أي رادينيان أما أنت اسكو جغرافيكال ميلو دكتا ها جغرافيكال أنت ميلو دكتا عروسنا على يربي سميسانيان عيدا يربي سميسانيان ها مكاسو كورنا أنا واكن عن نحي خلاص marka watan iyo cunsur iyo magac iyo language iyo midab intaasoo maxay ka jawaabayaan man ana yaan ahay nin walba wuxuu rabaa inuu ogaado yaan ahay marka ciid isku xidhaya marka ummadihii baa laba kala ah marka ummada primitive society oo wali imika maxay tolo gurguuranaya kuwaas intaaba way ka hooseeyaan iyagu DNA ga isku aruursadaan inta isku awowgood bas isku raacay awowgood baa aruuriya awowgoodii labaatanaad ayaga is aruurinaya iyagoo kuwaas iyaga man anadoodu awowgood baa awwa raxmatullaahi calayhi waa geeriyooday rajul saalix u ahaa saas oo kale laakiin waxay wadanna ma gaaray inay isku aruuriyaan luqadna ma gaaray inay isku aruuriyaan midabna xataa maxay tira waa ka hooseeyaan iyagu waa DNA dhiiga ayay marka inteeni isku maxay tolayeen ay maxay tolahayd ayaa maxay to is aruusanaysa taas mar halkaas uu ka duulaya markaas yaareed waliba halka ay joogto taasna way sii يدنا ويسيد أديك سالفت ذبو من أنا دينا من أنا إلا إسقى ولالكي أي كلا مصيبة كلا أي نقطة مركا مرنا ولا ملهانا يو كلام بنك هذا دونا ولا ملهانا صوبته بلاتفورم ما مش وكدو تاجن يحي أيان ميل سوغان أيان محتولي أيان حين قف قطو إلى هذا أنا قد دين بان محتولي إيه أحيان من أنا ذي دين بان كحرمية مبدأ ayaan maxay la ku xidhmaya wuxuu mubaasharatan uga jawaabaya samadiiba ku xidhmaya waxyigiiba ku xidhmaya awowgii waa sii maraya markuu sii socdo isaga sheegaya aabihii buu sheegaya awowgii buu sheegaya awowgii waa dhaafahaya nabigiisiiba maxay alayhi salaam maxay la gaaraya waa dhaafaya ambiyadii ka horeysay buu dhaafahaya illa nabiyullaahi آدم عليه السلام له صلة بالملائكة ملائكتي بعلاقة محيطه لهانية له صلة بالرحمن الرحيم سبحانه وتعالى فهو يعيش مع هذا الكون الفصيح يا كلا عند سنين كامركا فهمت هذا هو عمق انت على يوقفك مركا محيطه امتداد كيس وإلا هالكاس فأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك من لب أوطاني من الله لما يشي الله أكبر لقى يرى هذا بيوري واحد مودا بيوري لابتي إني أنا محيطه إلى هذا إن محيطه إلى هذا الهيو لأن لابتي سينا واسع سدي أفقي سينا واسع سدي أوجي نواسي مر أوجي علمها أوجي نعب معها أوجي ويا هاي واشيغنا هيا واسي مر هيا واسي سلام يا ولي سلام على الصديقين واسي سلام يا أوجي وجعني لكن كما محيطه كما كان يو حدقنا وجما محيطولي وجما حدنا mar haddii ogaado diin haddii uu abtirsiimo sheegto deedna wuxuu ogaan doonaa markaa
carafa muhiimatahu gadaal baan taa ka sheegi doonaa haddii maxay tole waqtigiisa lumin maayo waqtiga dadka kale maxay tole lumin maayo luqo ku raagi maayo cunsur maxay tole qofku maxay tole cunsurina noqon maayo subxaan allahi alcaliy qofku mar haddii mabda diineed laabtiis waa suurtagal afka inuu ka yidhaahdo mabda diiniyaan haystaa laakiin aan qalbigiisa fadhiisanin laakiin maaragtay qofka qaba asmada xiiqda qofka qaba intaynu caadiga soconno xiiqdiisa lama garto laakiin sallaan ku orod ku dheh markaasay soo baxaysaa biyaha fadhiyo soo arag biyaha ceelka soo arag ceelka biyaha fadhiya waa xareed goorma la ogaadaa dhoobada marka maxay lagu dhufto lagu tuuro dhagaxa marka qofku afka waa ka sheegi karaa islaamkii iyo xataa qaabkii waa u ekaan karaayo cimaamadahan iyo waxaan waa all right way intan soo baxa waynu iska huban karnaa intani subxaana rabbika laakiin qofka goorma tijaabinayna markaynu aano isagoo xiiqaba sallaanka kor markaad kamanka reerka tuntid awowgii markaad xasuusisid wifaaro aad leeda waariyaha waxbaa hoosta ku jiray inta kale oo dhan waa wada shaqaynaysaa waa iswada jeceshiino waxba wax dhibaato idinkama dhexya laakiin bahalkaasi goormuu soo baxaa wuxuu soo baxaa marka la ishee ayay bug bahalkii soo baxaya markaasaad garanaysaa maxay tolay warba ninku meel fogba ma ahayne ilaan meel awowgiiba xadhigii meel ka fogsan xadhigu maxay tolay uguma xidhnay dhulna kuma xidhnaanayo dhul keli ah kuma xidhnaanayo abadan rasuulullahi sal slam adduunka wuxuu ugu jeclaa maka ma laga saaray mise lagama saarin yaa ka saaray dadkii wadada isagu ugu jeclaa makay adduunka ilaahay adiga ayaan kuu jecelay haddii aan laga kaa eriyinna kaama bixi lahayn magaalo kale ma tegin mise ma tegin dad kale ma tegin mise ma tegin magaaladii kale u duceeyay nabigu sala allahu allahuma baarik lana fii madiinatina ilaahu saad maka u barakaysa annagana maka madiinaha noogu maxay toolay barbaari wadanka dhulka xaqiiqiga aad leedahay kama dambayntiina waa 2 mitir ee xabaashayna la dhigi doono xaqiiqada qofku inta uu leeyahay dhul adduunku maxay tole uu ka leeyahay minha khalaqnaakum wa fiha nu'iidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhra wama tadri nafsun madha taksibu غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ما في مشكلة markay dooneen markaa reer galbeedka imika aynu la joognaa markii ay kristanka ay ku gaaloobeen ee diintii ka baxeen ee ay samaysteen aqoono iyagu ay isku hagaan saddexdii qodob ee ka jawaabi jirtay diinta kristanku bible-ku kaniisadu ay ka jawaabi saddexdii aqooneed ba annaga bedel u samaysanay bible-ku awal iyaga uga jawaabi jiray taariikhdii aadamaha oo waa kii nabiyullaahi aadam abuurkiisii iyo bible-koodu ku qornaa uma baahnin bay yidhaahdeen annaga aqoontaas soo helayna aqoontan anthropology-ga la yidhaah ayay samaysteen aadamihii bay dabagaleen ilaa Charles Darwin aakhirkii uu yidhi awowgeynba daayeer buu ahaa halkaasuu maxay tolay la maray halkaasay kaga jawaabeen way diideen qeexitaankii bible-ku lahaa aadam baynu ka nimid iyo xawa cilaaqada dadka ka dhaxaysa oo kaniisadu ay ka jawaabi jirtay bini aadam kaana waxay uma baahnin annaga cilmi cusub dhiganayna cilmiga sociology-ga ayay samaysteen cilmiga bulshada say bulshada u wada nooshahay waxay yiraahdeen saska iyo naxa iyo shakiga iyo warwarka iyo stresska iyo depressionka awal wadaadka bible-kooda saari jiray oo qaboojin jiray Soomaa kaana no more bilad uma baahnin annaga psychology cilmi leeyahay baan samaysanana ninkana daweynayana odayga bible-ka fadhiyo maahina waa psychiatrkayga ayaana daweynay saddexda aqoonood bay soo ziyaadiyeen qarnigii 16aad wixii ka dambeeyay aqoonta ilaa maanta adduunka lagu hagana maxay tole ay ku wada nool yihiin marka waxay dooneen inay ka jawaabaan markay aqoonta ay samaysteen inay ka jawaabaan man anadii inay ka samaysteen marka waxay doorteen alqawmiya nationalism iyagaas maxay tole samaystay inuu Jarmalku Jarmal noqdo Faransiisku noqdo Ruush maxay tole uu noqdo Irish uu noqdo Britishku uu maxay tole uu noqdo Anglo-Saxon uu noqdo oo gabaya loo tiriyo la soo nooleeyo wixii maxay tole ay ahaan jireen wadanadii ay gumaysan jireenna way noo soo rareen marka sida shimbirta baabaqaagu baynaguna ka daba celinay babaynu orda baashar baxay ahayde inaguna waynu qaadanay meel walba calan yar baa laga taagay way idinka arkaya maxay tolay say taagan alqawmiya deedna waxay ku darsadeen al-isticmaar inay dadkii adduunka gumaystaan xoog ay ku gumaystaan ayay noqdeen iyo muxaadaradii aan ka akhrinay mu'tamarka al-ghazw al-fikrigi mid gacmeed iyo mid maskaxeedba way iskugu keen soo dareen waxaan idinku bishaareynaya maanta lafteeda Yurub aan dhex joogno hadda aad wax u akhridaan waxay qoraan waxaan idinku bishaareynaya xataa nationalism maanta Yurub gudaheedii waa lagu kufriyay way ku gaaloobeen
تويدين شيء هي حقيقة أوقاتان كتبت قريان إيو كريتيساز قرينيان nationalismigu waxay ogaadeen inaanu sii shaqaynaynin waxay ogaadeen dagaalkii koowaad isagu inuu dhaliyay dagaalkii labaad inuu dhaliyay dagaalkii qabooba iyagu inuu dhaliyay nationalismigu inuu dhaliyay bay ogaayeen nazismigu inuu ka dhashay waxay ogaadeen nationalismiga fascismigu inuu isaga ka dhashay bay ogaadeen marka maanta falaasifada reer galbeedka la nooshihiini waxa ay raadinayaan waxay u bixiyeen maxaa ka dambeeya post nationalism ayaa iminka laga qora weli way laayiin wuxuu noqonayo laakiin waxay rabaan watan way shaqayn weydaye maxaynu keenaa laakiin inagii weli way nagu cusub tahay inagii xageeniya weli waa calanka haydi weli waa sidii allahu almusta'an البحث عن الذات markaad ka jawaabna su'aasha war maxaa tahay qofka mu'minkihi wuxuu oranayaa anigu waxaan ahay abdullahi kelmad yar maaha abdullahi baan ahay qofka oranaya العبودية وأحيد محيط الأنواع التوحيد كي متكملة لكن نسب كيسي وحو نقول عبد الله ناقة الله بيت الله كتاب الله رسول الله أمة الله فكل هؤلاء ينتسبون إلى الله سبحانه وتعالى مطلق وغاية العمق جيدا لكن له وأنا هين بيننا أنا هين نفاقنا أنا هين سبحان الله العلي القدير قال ذي النبي محمد لجوكتي صلى الله عليه وسلم ووينا أبو جهل يا رجل لم يتكأها ما لنتو النبي صلى الله عليه وسلم أذيركي أبي طالب أي نفتو كسي بحي سيبي تولكي نبي كشيرين وإحنا ورنكي نكا ينوها يوان نكا بيناهي نبي محمد وحي نوها يأذيركي نكا نطلوان ونحي ورهي نقلها لولا إنكو دلية إنه يرى نبي محمد الله يرى صلى الله عليه وسلم adeerkii baa la hadlay adeer buu yiri anu waan sii socday sariir baan saaranahay tolka odayaashu ugu muhiimsanaana waanay ka ashtakoonayaan diintan cusub ee la timid bay diidayaan adeerow anoo nabad qabo oo caafimaad qaba han ka taga tolka la heshi markaas wuxuu ku yiri adeer waa kelmad kaliya yiraahdaa Abu Jahl baa yiri ma kelmad kaliya 10 baan koorana dhab waxa doonaysid قولوا لا إله إلا الله عرب يعجب بيدك أطلني طلع يا رجل ورياله وقولوا لا إله إلا الله وردها بيور عرب يعجب بيدك أطلني بيور مكاسي وذا جوحين مكاسي كلمة دي محيطه لي أيديدين سؤال علماء السيرة سؤال سويدين وحوي وحتى يحب كلمة أفكار لغير هذا أنتهي ما يسكير هذا ويسكر هالي جليان دي ما أنت عم بعدين روح عندنا ويلي حتى كلمة ده سكقام إن بدل المسلمين بقى كلمة ده بات اللغة هاجله وروح الأفكار أتكلم هذا هاي أوركا نبها كهاتو سبحانك ده هذا حتى جهلني ماذا كسي أتكان يسيد بهاش نبو قاضو هذا الدين قاعدين يسيد نب محط ولا يقاضو ولا بدأ جهمد ونمر هذا جهة وعطيسو حاجو ساسان هيو ساسان هو ساسان محيطه لهي أبي طالب أيو النبي يقول سو سريت سارا يكون يقدر يعذق قل لا إله إلا الله لفتاب يكون وديدين عذق ده كاسو أبو جهل أنت وطول مريب يوري ما أبها عبد المطلب دينتي سيدين أنا هين بات راعي مانت وهبلها رير قريش باكو شيكيسن هدو تولي نفتو waxay kaga baxday nabiga adeerkii sallallahu alayhi wa sallam bal ala diini muttalib isagoo leh maxaan uga soo ish shaahidku waa maxay war iyagoo gaalo oo hooslaas ah bay waxay aaminsan yihiin dhab ay ka ahayd haday iimaan tahayna iimaankoodu dhab ay ka ahayd haday kufri tahayna kufrimoodu maxay ka ahayd dhab ay ka ahayd wax loogu soo hagaagay iyo jihad loogu soo hagaago ayay maxay toolay ayay lahaayeen abdullah adoonki ilaahay baa tahay risqina ilaahay kuma weydiinin khalqiyaagina kuma weydiin ma ashhadtuhum خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضودا ما أنت إلهي كوابوري تلكم ويدين لا تليالنا إلهي ملحين لا تلي سبحانه وتعالى الكايان كدغا هلكايان كدغا هلكايان دجيا إلهي سبحانه وتعالى إن مود يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار وحضون إلهي أبورا سبحانه وتعالى دورشدنا إسقاله آدمه دورش إلهي لما سبحانه وتعالى في أي صورة ما شاء ركبك إلهي بالا سبحانه وتعالى لما نين اللهين تلنا الله إنما ويدين سبحانه وتعالى مكا
cabdullaahi subxaana markaad cabdullaahi aad qaadatid ee jawaabtaadaas hadday ku ansaxdood adigu uurkaaga hoose aad ku adkaysid horena aad u tidhi maantana aad ku jadiidisid berrina aad ku jeedisid aanu kaaga duugoobin idan allah waxaad u qirtay khaaliq inuu yahay ilaahay waxaad u qirtay aamir inuu yahay ilaahay waxaad u qirtay naahi inuu yahay ilaahay waxaad u qirtay waxa xalaaleeya isagu inuu yahay waxa xaaraantameeyana ilaahay inuu yahay subxaanahu wa tacaala aadamuhu dadka maxay noqonayaan marka in ku dhashay وكيمك شيخ إنه وش كيني دحال كيسو ما أنت درسي سبات بيرو فريسن آدمه إلهي أبو ربحو كون نقول إد كل شيء هذه وإن على إن كل نلتي وإن انتقلت إن هذا وقت شيء وإن هوسه الرحم يطل إذن كده حياة يدرس الدرس أتهين زميل شقاء محيطه اسكو قلت مادان مؤمن مساجد اسكو قلت مادان مؤمن عاصئة قال intaa waxaan ahayn maad garan aadamuhu intaa unba dadkii ay maxay tolo in walbana sharcigu wuxuu ku leeyahay qaab aad ula dhaqantid intaaba sharcigu wuxuu ku leeyahay qaabkaad ula dhaqmi lahayd aadamahaasi waa intaad cilaaqada maxay tolo leedahay raximka xilbaa kaa saaran inta ku dhashay xilbaa kaa saaran intaad dhashay xilbaa kaa saaran maxadeebu kuu roon yahay dariskaaga xilbaa kaa saaran ama ha noqdo mid aad diinta ku walaalowdeen ama ha noqoto mid diinta iyo tolnimada aad ku walaalowdeen ama ha noqoto mid aan labadaaba ku jirin gaal maxdi ah laakiin jaarnimadii aad aad maxay tolo sida aayadda quraanku ay maxay tolo ay sheegaysid intaasoo idilbana maadaam cabdullaahi aad doorato inaad tahay intaasiba xuquuq bay kugu leeyihin qof walbana xaqiisii ayaad siini sida sharcigu allah subxaanahu wa tacaala uu kugu amray waxaan kula dhaqmaysaa dadka likulli diinin khuluq intaa aan tilmaamay waxaad kula dhaqmaysaa akhlaaq wanaagsanoo likulli diinin khuluq diin walba khuluq caan uu ku yahay baa jira وخلق الإسلام الرحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم أخلاق لف دبر كدين إسلام كوه نوا محب يوري الرحمة والنحريس انت صورنا من النحريس بعد محيطه لكل رقم مسا وقت كل تعامل سا ما مهمتي سؤال شكو ما كان حديدي ما كان واحد حديدي إن عبد الله تهي ومركا لا عنصر با مشكلتك جواه لا قبيل با مشكلتك جواه ولا فكر با مشكلتك جواه ولا كوح يرو محيطه له إن الذين آمنوا ذين هوسنا مشكلت بيكو جواه حتى سيرة وحلقة دونتات كنا دقائق كرتا أما إسكو عمامة نقطة أما إسكو سروال النقطة أما إسكو تاي نقطة إن يرو هوسا جرتا كوه هوسنا عقدة وين كوجو معها ليش؟ لأن أنت عبد الله أنت بعد كسر سبحان الله العلي القدير أنت عبد الله بعد قوستي ما نقولن عبد معين عبد الوطن ما نقول عبد القبيلة ما نقول عبد المجتمع ما نقول عبد اللون ما نقول أنت صرتها أنت عبد الله إلهي أياد محيط ولي محظوظ كون كون النفسيح يكويه سؤال الله بعد السويدية تحدي جيدا نقوله وحويا ما مهمتي دان نقضي أضونك إلهي سبحانه وتعالى حلك إسارني معويه xilka aniga ishaarani ee ay tahay soo markay human resource iyo HR kii waxa la inoo dhigayo soo inama yiraahdaan vision iyo mission iyo objective iyo wax soo waxayna lagu akhriyo soo inta hada huwa nafsi shay muhiimadda adoonka ilaahay baan doortay ilaahay igu waafaji ballan iyo ahdi baa ilaahay kula galay in adoon ilaahay inaan hay subhanahu wa ta'ala aadamuhuna inay yihiin mu'min caasi iyo طائع أهوي تهاي إن الحل إياه ولا نما أن وهايو إياه قال أي تهاي إن أدعيو أن رب إن دين الإسلام كان محيطه لأن سوق ليو هدي أن صائل هذا أن أحي صور عضبها وركاس بها هذا يلا سكولوا دوما صد هذا وحنا هيدي مجرو مؤمن لا إله إلا الله محمد رسول الله يري أفكي أدمه يبقى كما قال كفوا عمن قال لا إله إلا الله وهذه كما قال قفك لا إله إلا الله محمد عرف يقول وكنا بتقال هي حمن مايو نعم مايو وناقي سنة كنعم مايو الله أكبر وناقي سنة كنعم الله زياديو هوستو ما الله إلا أنا أنت كم أنا أنت تقول إسي لكن إله كقاضي إسي سبحان الله العلي القدير ما مهمتك صدح مهمدود بأدونك صارا مهمة أفر هذه جرت إذن كأي شيء كو قفوا إنه ولا شهوة ديس مهمة ديس وإنه شهوة ديس حقبتره المتعة lust 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 شقة ديس يسوق وإنه يسوقون متعة شهوة ديس كشقية بس شهوتنا والله شهوة شباب هي شهوة شيوخ لن يرضوا
iyada maxay tahay mushkiladoodu waa jinsiga aan bayagu mushkilad qab in xalaal ku hela xaraam ku hela adigu mushkiladiisu waa jinsiga isagu yaa macshara shabaab man hadiska taqaadi waa kaasoo hada mushkilad taas badana ma weyna shahwadaas dhaqso u jabtaa mar hadii qofkaas uu guursado oo la aruuriyo lagu dooro adar waa kaasi way ka jabtaa mushkiladaas خلاص xumadu way ka jabtaa xumadaas way ka jabtaa qofka wax weyn ma لكن مصيبة واحد جرتا مشكلة الآن شهوة الشيوخ وحلينا شهوة الشيوخ وكان عن كفر ديوي يا بحالكيرا خطرت ولي بقى نرويجي كان إما كابس لا بس يقع على تاكر جودة بحالكير ومشكلة وكموي هاد موقتيد هلقوا شيغو حلقبو هاد يجير فردق هالكورة هلقوا سوف فريسيو hadalka laf dhabarkiisa adigu maxay toolay qaado adigu talada bixi had iyo jeer waliba taasina waa xumad aan jabin ma jabta xumada soo musiibo weeyaan culamada tarbiyiintii muslimiintii wax tarbiyeyn jiray markay cilmi suluuka marka ay ka hadlayaan waxay yiraahdaan wax walba qofka xumad kasta qofka waa laga jabin karaa xumada ugu dambaysa ilaa uu god u galaya aan laga jabin biiri waa hubbu ri'aasati wa sharaf حب الرئاسة حديث النبي كان واضح صلى الله عليه وسلم ييجا نبي كنت سالين صحيحة صلى الله عليه وسلم حب الرئاسة والشرف قف قصاص أكل ما نبو رسول الله صلى الله عليه وسلم بريته له علنك وحنو ديبيا نن إلهي إيا النبي قبا أي جعليهين إساقونا إلهي إيا النبي قبا جعل ديال بالك هذا حقيقة أرورتي بس عاد الصبح نبي قومدي تكوي صلى الله عليه وسلم لسوي ذي جيست عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما قشر كينا هي مركز إلا وربع حلي بحي إلا مركز أوحير فتصورت لرسول الله صلى الله شهد كنت كني نبي أرسطوس يا أبو دوا يا وانجوجا وكنت جربش وهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه واللي مالتها كور حلم دون بيقول عمر الخطاب مالتها كهر ما ندور وحكى لما ندورين وحيوري تلمان طلع تلمامي إلهي النبي محمد بجعل صلى الله عليه وسلم يسوون علي النبي محمد بجعله هذا الهابي 14 ماشي كقاضي يقول ماشي الفير هذا حب الرئاسة وكات يا إلا شيخو حديث كي وتقانسنا عبد الله بن عمر به لفتي سوق شيخين سيدنا نبي ويديه صحابة رضي الله عنهم ويديه جيتك كم إذا جرو مؤمنك لا طيئة صحابة متبجد بوش عبد الله بن عمر وحي ويقول صعد عليه جيت كنا بقدر تمرتين وياي لكن رجوا وين بفردي وان كحش وذي بيقول إنا شيء ما كان صوب بحبه أبيه وشيء وان قرت بيه أبو إنه نبي جيت كنا بيقول شيء إنه ويدينا كايم أرمات شيء تدبر أرمات شيء تيجي وكم مقلة يبور نفط المعسكر جعليه إلى عمر ماشي هباشي عليه هذه قضايا نفسية إنه أصلا وعندنا بريكة معها عد وحكاس وإنه جرا إلا كنت هو سوى حيابه إنه أبور محيط لويان تحديات كأ يعني تحقق إن موستد ومر الله مركو كوسون نفسه تتكلم أنت أنا أرج أذيق وهذا أذ حكميته أرواكي وتقانا وأنت يا رذا أذيق محيط لي أذ قابط إذن مهمات هو وين اللي قلنا لي هاي qaabka maxay tole muhiimaadka midwaadha shahwada waa mutca qofkaas wuxuu u nool yahay naftiisa gurigiisa gaarigiisa cuntadiisa wixiisaasoo maxay too kale xilligii Umar ibn Khattab xilka hay radiyallahu anhu wardaa hada muslimiintu ay aad ka u faafeen wal badan la qabsadeen lacagtu ay badatay ayaa nin badri dagaaladii badr ka qayb galay Zubraqan ibn Badr baa loo jiray Zubraqan ibn Badr radiyallahu anhu badri dadku nabi maxamed ducay reer badr la'alla allah tala ala ahli badr faqala lahum if'alu ma shi'tum faqad ghafartu lakum hada reer badr Zubraqan ayaa waxa arkay xutay waa gabayadii waaweynaa ee xilliga jiray xutay Zubraqan ibn Badr arkay marka wala lacagaysto wala xoolaystay saxaabadii wada gaajoonay ma aha iminka Umar Khattab Iraq iyo Masar iyo meelka illa Tunis baa la maraya Afriqiya Tunis la oran jiray Tunis soo taqaanaan maga waxa loogu bixiyay Tunis muslimiintii furatay toddoba ciidan baa loo diro toddobadii ciidan ba way soo jabiyeen reer Tunis markaas Umar Khattab yiri war fuqaha loo diro fuqaha baraabirada amaaziiqan imika ayaa joogo iyaga laftooda rag aad u dagaalamo fuqaha loo diro horta boqoriga hanoo rag hala doodo
geed hoostii baa la isugu yimid bal acyaantii noo soo dirahayno doorta diintan idin soo bandhigay 7 ciidan markay Tuunisiintu ay jabiyeen geedkii hoos fadhiisteen baa saxaabadii nin kamidi geedkii iyo waarifa markuu arkay bii haadihi shajaratun tu'nisu ahlaha geedkan waa geed dadka ag fadhiya ay harsanayaan oo heshanayaan maxay tahay taas magaca Tuunis waxa kaas maxay tahay uu ka yimid magaca saxaabada ay bixiyeen ayu laakiin magaca Afriqiya ay oran jireen muslimiintu way lacagaysteen Xutay'a Zubraqaan ibn Badr waa u gabiyay waxaan ka hadlayaa dad u nool naftiisu qofku inuu u noolaado وحير دع المكارم لا ترحل لبقيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي دع المكارم شرف يميل سرود قادد زبرقانو كهد دع المكارم ميل سرها هيكسن لا ترحل لبقيتها أو هنقل تاجن يا ذو حنقوتت واقعد فريسو فإنك أنت الطاعم الكاسي در سيد الله حده iyo sida wax loo cuna taqaanaaye saxaabiga waa carooday Zubraqaan oo ninkan sharafteedii Umar ibn Khattab uu tagay oo ninkan iga qabo hal muxuu ku yiri daaci المكارم la tarhal li baqiyatiha waqad fa innaka anta taa'imul kaasi waan warka garan maaye ninkii nabiga u gabi jiray Xasan ibn Thabit loo yeeray Xasan buu yeeray oo labada ninka isku dhageysay buu yiri muxuu ku yiri daaci المكارم la tarhal han malihid han gumbata han malihid fadhi sida wax loo cuno iyo wax loo cabba taqaana kira gurisi loo bixiyo iyo ubad sida bariis iyo cheese lagu soo iibiyo taqaana bas hada mushkila hadee noloshu bay taa noqoto ka warraba wal baadeerayaala hadee noloshu ba noqoto kiradii gurigeena waa bixiyay ciyaalkada roodhi iyo caaleer baan u soo qaado waa keenay wuxuu yiri da'il makarim la tarhal li buqyatiha waq'ud fa innaka anta ta'imul kaasi حسان بن ثابت بايري ninka sharaftiisa waxba kaga ma tagin buu ninka waynaga maanta Oslo kaga sheekeynayay Zubraqaan ibn Badr gabaygiisi waxba kaga tagay ninka waxba kaga ma tagin buu 6 bilood buu Umar ibn Khattab xiray Xutay'a radiyallahu anhu leesh laana bariga waxay ahayd qofku inuu u noolaado dadka kale iyo xil iyo diin iyo dacwad iyo mabda iyo afkaar ayaa asalka ahayd oo Nabi Maxamed ku barbaariyay dadka sallallahu alayhi laakiin markii xaalku isbedelay la aduunaystay in walba intii si yareeday gaabneed oo maxay talo ku soo haray hatta dadkii gabeeyay baa diiday oo arinkii ay qaadi way dad saasi u nool yihiin naftooda u nool yihiin waa koox markaad Cabdullaahi aad soo qaadatay daama kooxda koowaad muhiim missionkaagu dad naftaada iyo afarta dhashay aad ka shaqaysaa waa hawl lafteeduba oo imika waxyaabaha la yaabas waxa kamid ah adduunka oo dhan baad soo maraysaa mushkilada inoogu badan ay nahaysataaba waa aniga islaantii aniga ciyaalkii war miyaanay ummad wax kale ba adduunkii jirin ciyaalkii nafta waynu dhalno Ilaahay baa subxaanahu xilkooda ina saaree mar hadday 15 jir gaareen oo 16 jir gaareen oo 18 jir gaareen oo qeyn gaareen oo quraankii u soo dhigtay oo diintii aad maxay talo u soo dhigtay ma ilaa 40 jirkoodana maad wadi uun marka waxaynu ku haynaa sidii bisad yareed ilkaha in ku sidanay wa kaanahu ma عندنا mushkila kale ana hayn yaalka yaruun iyo islaanta yare aynu guriga nafta isku keenay al ifsad mushkilada labaad waxa weeyaan qaab hamiga labaad ee loo nool yahay waxa weeye dadka ay u doortaani waa maxay al ifsad waa inuu fasahaadiyo subhana dad baa u nool hada al ifsad wa idha tawalla ha sa'a fil ardi muxuu qabani liyuhlika fiha al hartha wan nasla wallahu ma yuhib wa hadaf النول يعين فسهاديو ها لبا اسجعل انو كلا كعيو لبا اسلاك فديا اخر انو درو وكم مع سنه بدبتا لبدا موجوده والله اخر ودري حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي القدير هذا المفسدون markay rabo inay fasahaadina hayaan fasaadka uguma yeerayaan magacii fasaadka been baan sheegayaa manin baa qoranayo ka dhageysan waan isku kiindirayaa tabbaan idu suraya ya cido oran bayso walaalnimadan ka shaqeynaya xaqeeni baa inaga maqan waa in la dulmiyay ceelkeeni baa la dhacay baadkeeni baa la qaaday meesha laga soo galay mataqan markaa iga wale waa run abuurtaasay lahaayeen way ka soo dhaadhaceen oo teeni bay qaateen armay qaateen ha hebel ba weydii waa iga run wallah si yaro kulbu xumada kugu shidaya
adoo isku joogin bad arkaysa adigoo leh iga walle waxba inaga maqan ya dhowr jaga inaga maqan iyo dhowr wada inaga maqan iyo ha hatta adoo isku tukanay imka saacadu tuko taraawixi tukanay wax walba tukado in alladina aamanu ayuun bad haddana waxaad arkaysa adigoo ku celcelinaya in yaro hoos lagugu sheego ina dhabtayna waa suurtagal laakiin de waa dareen waa mufsidka weeyaan mufsidku mar sheego ma oranayo dhiig baan daadinaya dad baan dhacaya ummad baan isku diraya ma oranayo laakiin waa inuu magac qurux badan oo la qaadan karo waa inuu yeelaa bal gaalada maanta ila dhageysta bal adduunka ka taliya waxay oranayaan xuquuqul insaan human rights kama qurux badan ma tahay waxa la oranayaa globalization alawlama ama alkawkaba adduunku de hasku furnaado cid baa oraysa adduunka xirxira warba hasku furnaado ha isku furnaado waa xaqayga ka furnaado waa xaqayga aniga ana soo afuufaya adiga waa kuwa afuuf adiga ku galo waxaan doonayo carba xaqayga ka furnaado kada alkawkaba waxa lagu oranaya adigu muslimo xaqayga waxba hayga keenin anun ba ku keeni waxaan ku keeno waa awlama qaado xuquuqul insaanka xuquuqdiisa 35 milyan ayaa dagaalkii labaad ee adduunka ku dhintay qolooyin madmadow professor oo Mareykanka maanta wax ka dhiga 126 milyan ayaa madowgii qaaradda Afrika laga qaaday Mareykan iyo Yurub la geeyay badda lagu daadiyay inta tagtay maaha inta badda lagu daadiyay dhimatay kaliya 126 milyan bay gaarsiiyeen cid allaala cid ka damqatay oo tiri waxaasi qalad buu ahaa wax allaala wixii isticmaar ku dhacay qaaradda Afrika iyo Asia nin maanta intuu istaagay yiri waan apologize garaynayna haba yaraate madaxweyne Faransiiska doona Aljazaa'ir inuu tago markaasay madax ilaahdeen waan taanad iman 120 sanaadna gumaysatay milyan iyo badhna kurkaad ka jartay bal intaanad iman Paris waxaad ka soo tiraahdaa waan cudur daaranayaa no saan cudur daarta wadu baahnaa madaxayna ku dhuftay xuquuqul insaan human rights globalization balwar ad-dimuqraadiya ayaa maxay lagu oranayaa muhaarabatu irhab hargeysan aad uga sheekeeyo idinka aad idin sheegi maaye taarkasan ka gaaritas كودا لكل مقام مقال تحقق يجيب وتعطي كودا إلى بحضر هرجسان كقري لين إنك كده اللي يريدون يقول هذين دق وكانوا مدير ماشي تعلم بصوص على لين فيريا وحنو جد هذا الرجال إذن تاسوا مهمة تاسوا محي أما قف إنه نفتي سو نولاده أما إنه محي نولاده مفسد إنه النقضه مهمة وجودهم بيسوا محي الإصلاح والمصلحون عبد الله ما دورتي سومن مسكون راعني هلكي تبليغي سو سومن راعي يا شيخ عبد الرشيد انت هل يقول شيخ ان فافين هوشي انا يا سو باركسا هذا ايغا دلبتو ور دغيس تحت عبد الله من يرو ميل مسك دغني هو اسكو راعنا تاس ان شاء الله ينغا دغو الله هينو نغو دلو خاتمه الله ينو هغاجيو قضب خلاواد waxa weeyaan shahwaaniin ilaahay naga ma dhigo mufsidiina ilaahay inaga ma dhigo maxaa dhiman marka al-islaah wal muslihun inaad waxna hagaajisid kuwa wax hagaajinayna aad ka mid noqotid ayaa hadafkaaga muxuu loo yahay oo waa maxay markan aynu hagaajinayno qofku muslixa oo muxuu uu noqonayo maxalli buu leeyahay إلى شركتها واوين كوربوريشن كي شركتها كمبانيدا واوين با كورانيا waa inaad samaysaa maxay leh mission kasta waa xilli u samaysaa timeline waa u samaysaa sanad baan ku dhameynaya 2 sano ku dhameynaya soo muslixiin isku been raacina noqono ma halkeebu ku dhamaanaya marka islaaxaas يا الله أكبر نجابا يا واتلمامتين نجابا حلقي النبي يمي صلى الله عليه وسلم كاسو reerkiisi buu amaanay ninkaasi la baasho ilaa halkaas taagneeday rasuulullaahi oo maqlahaya markaasuu ninkaas wuxuu yiri sharaftayadii ilaa samadaanu geynay buu yiri samadaan reerkii gaarsiinay buu yiri wa inna nabtaqi ba'da dhalika imkana inaanu sii dhaafnaadanu doonaynaa buu yiri nabiga intuu qabtay buu yiri war hadaad reerkii samada ula kacday maxaa samada ka harsanay halkeed u socotaa buu yiri maxaa ka dambeeyo buu intuu qoslay buu Allah buu de jannadan kula gelayaa buu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam Allah buu nabi sallallahu alayhi wasallam ay isbedelkii saxaabada ku dhacayaga ha balagna majdana sama was sanaa al ula annagu hadaanu reer hebel nahay buu afartan dhulka luweynay kaba tagnay annagu bahashi waxaanu geynay cirkaanu ku talnay
إبن كان سيدنا أفنان دور النبي وارما حد من بيقول سماه كحد ندخل معك الجنة يا رسول الله ما أنا غير كنا نبا مش كلمة كنوت هاجني أنا أذيك أخوه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن إصلاح حل ماله أو وقت ماله أو زمن ماله وحان رامك إن أنكو ختمه هذين الله سبحانه وتعالى وافجيو إلهي مصلحين تعالوا نجمد لجوه إلهينا هي نجمد لجوه حل ماله ما كان اللي يرى الصحوة الإسلام كي يبرارو الإسلام كي محيط ولا سوق شيء إن يربع إن يرجع شو وحي إنه هل كان صور دجني دولة الإسلام بينو تاجنا أيوة برايد راك سوق شد زوبا دولة دينا ولا جاري لا باشي الدولة لا يرانا وفواتي هي مركامين وبنجرنا ودعودي بس كدينا مساجدي بس كاتقنا مركا هذه ما همك هذا مقامة فإما نرينك بعض الذي نعيدهم أو نتوفينك ورجوش إن أذيقوا جاري إن أنا جاري لقوا مدرن أذيق محل قدر يقون مت لما أذيقوا على الصراط المستقيم ما كحل كين وحل كحرا محيط لا دولة معها ولا محيط اللي يقول أدو إمسا صحابة النبي محمد كمدا أيها دقال كي بدر محيط ولا كل انتي إمسا دقال كي أحد لقول له صحابة النبي مية جارين قوش النبي محمد صلى الله عليه وسلم جارين مصعب صوت سفير كي النبي محمد ما هين ميانو غزبة أحد كو جاريونين ميو جاري مركا هل كانوا ما دام أي نقاضنا إن المصلحين إن محيط ولا نقولنا مساجد وين سيدي وعمرنا هذا دروس وين سيدي وعمرنا مؤتمرات وين سيدي وعمرناته دمرك وين سيدي هوشودي محيط ولا وضان ولا لمدين وين هالكيدي محيط ولا تحي أفرلاق وليبا وين نكسي لا بالنامه لأن هدف كان أولى جوجنا هل هدف فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فات معك واحد لا مشن كنا دخول الجنة هدف كيلو محيط ولا واقع وحي كهر يا دوك هنا لو صهر مريا بشرى خير زيادة الخير خيرين الله صهر مريا كان بها لكن يعني هدف كانوا نقنن هدف سياسي وهدي هالكان لقارنا وذ الجوج هينا هدي هالكان لقاري ويانا محيط ولا وحسان الموذن نبى ما حرا وحسان الموذن مركو النبي محمدين تفافين صلى الله عليه وسلم بي يو قالوا انتو غريو meelaha fadhiyaan ugu tagaan buu wardiinta soo gal qaar baa ku yiraahdo soo galnay annaga marka intaad kula joogtaan ku heeline adigu markaad socotid xilka ma nagu wareejinaysa soo sirada kuma haysaan kuma oranin noo dhiibay dadku xigeen baan hargeysa markaan joogo ku xigeenka naga dhig anaga marka madaxweynaha ku xigeeri waxba ku eerina baka waxa yiraahdaa waxa yiraahdaa war ku xigeenka naga dhig bay yiraahdeen baan hudo aad bay u fahmiyaan qaabka ku xigeenka way kala qaybsantay mukala xoogaysaas marka waxa yiraahdeen war ku xigeenka naga dhig ayay yiraahdeen hadda markaas nabigu wuxuu ku sallam laysa li min al-amri min shay wax allaala waxaan arrinka anigu aan ku leeyahay anigu male waxaan ku raacnaa bay yiraahdeen hadda badee daan ku xigeenkii noo dhiibayn كلمة النبي صلى الله عليه وسلم والله ما قفك يسرع فله الجنة أنا ما عندي إلا الجنة ما عندنا إلا الجنة جنة أم بين إلهي خاتم ذي أنا محيط الله إنه وديه مركا هذا أبغى حدنا وإنه دروس عمرنا وإنه مؤتمرات كعمرنا وإنه مساجد عمرنا وإنه مساجد لسه وإنه ذاتك وعديين وإنه قال الدين إلهي سبحانه وتعالى وشيء وإنه كإلى علينا إنه نقولنا تصالح ونقولنا يجعل لفتوده أفعاشين يا أغواشين سأنا فتنة تذكر دينتي أنا نقول نقول أنت صايد الهدف كذا محوي هي دخول الجنة فقط لأنه ما حيسوق هالميسان إنه إنه سعادة كو عمرنا إنه دروسته كو عمرنا إنه وجيه وروح بدل كل ما إنه هدف كنا قلنا هي حويا يا أخي أعني على أن أدخل الجنة ولكن يقول كلمة إذا حسن الخاتمة لها يقول جنة عليك أنا أقول كلمة حسن الخاتمة لها جنة يقول ولكن يقول كلمة إذا عروتي أبتك بدأسدو أنا أقول كلمة أبتك يسلانت يمتحانك إنه إله يقبطه الدمر كراها يقول سايسو كلمة يستان وهدف كوي هي مرضات الله تبارك وتعالى وح الله لو أنت كهوسي أو كله هدي محتو لسوي مادو ولو كل تجي لا أنا وقت دماني وحبا دماني لكن هدو هدف كن كوذا الجوجنا مركي هربا وها لله هدي وتاي بنشر ماينو سو بنشر كما تقانا بنشر دالي ماينو قوسن ماينو دقدقي ماينو لأنها قفل البوحة ولي هاي إلهي يوم حيث لي حسن الخاتمة إلهي وحان كبر دنبقى ينضافو دنبقى والدين تينضافو ولما ذي وحنا ودكتا انت نو إلهي إنو بركيو انت قيريوتا إلهي دنبقى ذم حيث لي ينضافو دول كان آن جوغنا أبتك إلهي إنو حفظ
وقريهنا إلهي إنه إلاليو وحيد بيا دبات المسلمين تلدون لكن أن جون إلهي إنه ينجح حجابه وبد كان مسلمين تلا قرنا إلهي إنه سبحانه وتعالى كحجابه إلهي وكقبته هو يكست وبد كيدي لقاته كربت كنه قلبي جد الله إنه قبوا جيو أبا كست وبد كيس لقاته كربت كنه قلبي جيس إلا قبوا جيو وبد كيس إلهي سبحانه وتعالى قريو ذم حتى لو يقصوا عليه إنه نتصالح وناس إلهي إنه ينجح دحذين أنا اسكو قبوا تتكألنا إنه هنا إلهي دين تود أي محتى أي كسو هنونان آخر كلام كنا لا إله إلا الله إله إلا نوها نجيب بإذن الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جزاكم الله خيرا. أنكرا وقل امرؤ يرضى له بقضاء ولله نعماء علينا عظيمة ولله إحسان وفضل عطاء وما الدهر يوما واحدا في اختلافه وما كل أيام الفتى بسواء وما هو إلا يوم بؤس وشدة ويوم سرور مرة ورخاء أيا عجبا للدهر بل لريبه يخرم ريب الدهر كل إخاء وشتت ريب الدهر كل جماعة وكدر ريب الدهر كل صفاء أمامك يا نومان دار سعادة يدوم البقاء فيها ودار شقاء خلقت لإحدى الغايتين فلا تنم وكن بين خوف منهما ورجاء